kulanti habboon daawadayaal soo dhawaada ciidamo beeleedka beelaha Duduc Cismaan iyo Cali Cismaan Kabaharaga ayaa saaka fuliyay howlgal wadajir ah oo ay kula wareegeen buurta Malaas taasoo ku taala koonfurta magaalada Xariirad. Howlgalka ayaa lagu sheegay mid qorsheysan oo si degdeg ah loo fuliyay laguna guuleystay in laga saaro maleeshiyaad beeleedka ka tirsan beesha Ciise kuwaasoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay aagaasi. Daawadayaal, intaynan u gadagelin warbixinteena, fadlan soo dhawaada YouTube-ka Bilan News, subscribe saara, inana la jooga ilaa dhamaadka muuqaalka, like-na saara haddii aad awoodaan. Mahadsanidin. Buurta Malaas ayaa ah goob istiraatiiji ah oo leh aragti ballaaran oo kanaali karta dhaqdhaqaaqyada amni iyo isku socodka deegaanka. Sidaa darteed ciidamada maamusha ayaa helaysa gacan sarreyn dhanka amniga iyo xakameynta dhaqdhaqaaqyada ka socda hareeraha magaalada. Sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka, howlgalku waxa uu bilowday aroornimadii hore ee saaka iyada oo labada beelood ay si isku dubaridan u galeen aagaasi. Wararka hordhaca ah ee laga helayo waxa ay tilmaamayaan in iskahorimaadka uu ahaa mid kooban balse aanu u gudbin dagaal ballaaran. Maleeshiyaadkii ku sugnaa buurta ayaa laga saaray goobta, halka ciidamada beelaha Duduc Cismaan iyo Kabaharaga ay si buuxda ula wareegeen buurtaasi. Ilwareedyo deegaanka ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray dadka rayidka ah ama dhinacyadii howlgalku fuliyay. Xaaladda amni ee buurta Malaas iyo agagaarkeeda ayaa haatan lagu soo waramayaa inay yihiin mid degan, iyadoo ciidamadu ay ku sugan yihiin goobta si ay u adkeeyaan amniga aagaasi. Daawadayaal, dagaaladan iyo waxyaabaha kasoo cusboonaada kala socda Bilan News.